بسم الله الرحمن الرحيم aniga oo Cumar Ismaaciil Maxamed waxaan halkan maanta rabaa inaan in yar kaga hadlo dhibaatooyinka ka taagan gobolka Awdal ee abaaraha ku dhacay dhibaatooyinkaasi oo in muddo ahba aan ka maqlaynay saxaafadda waxaan la soconaa guud ahaan inay deegaanka ka jiraan abaaro goobta ugu ba'an ama meesha ugu ba'an ee ilaa haatan qayladhaantu ay ka jirtaan waxa weeye gobolka Awdal iyo nawaaxigiisa haddaba abaaraha ku dhacay ee gobolku waxa weeye abaarta iyo dhibaatooyinka ama masiibooyinka waxa loo kala qaybiyaa waa laba qaybood masiibo xagga ilaahay ka timaado sida iyo duufaano iyo wax la mid ah tan maanta ku dhacday dadka reer Awdal iyo guud ahaan deegaankaasi ma aha duufaan iyo dabaylo ku dhacay dadkaasi waxa weeyaan waa abaartan noocaana waxa weeye nooca ay dadku sameeyeen ama aadamuhu abuuro ayay ka mid tahay noocyadeeda noocyadana waa wax mid wax laga qaban karo lagana taxadiri karo lagana hortegi karo lana yareyn karo gaajo iyo haraad maanta adduunyadu hore uga martay waxa weeyaan meel adduunyada maanta ay gaajo iyo haraad ka jira waa deegaankan maanta ay ku dhacday weeyi sababtuna waxa weeye waxyaabo fara badan oo mataqaanaa dadkaasi deegaanka ku nool wax loogu qaban lahaa ayaan la qabanin weeyi maamulka meesha ka jira waxa weeye waxa uu dadkaasi deegaanka ku nool u diiday inuu siyaasad ahaan dadkaasi ay ka xoroobaan ama ay xor u noqdaan ama ay doortaan cidda iyagu ay doonayaan waxaa loo diiday in dhaqaale ahaan khayraadkooga iyo maxaan ku dhahaa khayraadka dabiiciga ah ay ka faa'iidaysan karaan waxay leeyihiin bad bay leeyihiin berri bay leeyihiin looma ogola dadkaasi inay ka kalluumaystaan community inay samaystaan looma ogola inay dekada wax ka dhoofiyaan looma ogola inay dekada wax kala soo degaan taasi waxay kalifaysaa markaa dadkaasi inay abaara ku dhacaan meeshaasi haddii dadkaasi wax loo qaban lahaa ama maamulka meesha ka jira uu samayn lahaa inuu dadkaasi wax u taro wuxuu samayn karayay baa jirta oo sanada ka hor la samayn karayay baa jirta dadka abaartani maaha mid maantuu soo baxday maaha 3 wiig ka hor baa dadka waxaa lagu qaylinayay diiwaangelin inay sameeyaan oo dadku ay isdiiwaangeliyaan maantana waxaa la leeyahay dadkii baa dhibanaya maalinta lalahaa hal dadka la diiwaangeliyo qayladhaantu way socotay hase yeeshee dhig jaraq looma siinin waayo waxa weeye nidaamka SNM ama maamulka meesha ka jira waxa uu doonayaa inuu fushado danihiisa gaarka danta ummadaasi deegaanka ku nool kama talinayo kamana hadlayo dadka waxay ahayd inay khayraadkooda ka faa'iidaystaan in loo ogolaado inay siyaasadooda xor u noqdaan in loo ogolaado inay bay'misar samayn karaan in loo ogolaado inay dekada wax ka dhoofin karaan waxna ka soo dejin karaan waxay ahayd in loo sameeyo ceelal ay kaga maarmaan mataqaanaa biyaha ay ilaa hadda haraadka dadka ay ugu dhimanayaan 100 kilomitir dhul gaaraya in la leeyahay hal ceel biyood baa ka qodan ama 2 ceel biyood baa ka qodan taas waxa aqliga bilaadanka geli karta maaha maamulka Hargeysa waxa weeyaan intaas soo bilyan oo dollar oo macaawimo ayaa soo gasha ceel loo qodo dadka ma jirto har loo qodaa ma jirto balay loo qodaa ma jirto wax alla wax dadkaasi ay u maamulka Somaliland ay ku qabaan ma jirto waxaan anagu aaminsanahay oo ay shacabka reer Awdal State ee ku nool daafaha dunidu ay aaminsan yihiin in arintani ay tahay wax loogu talagalay oo dadka reer Awdal loogu talagalay in laga barakiciyo deegaanadooda iyo dhulka ay ku nool yihiin marka ay dadkan gaajo hesho marka ay dadkan haraad ku dhaco marka ay dadkan ay dhibaatadaasi ku badato waxa weeye dadku way qaxayaan maanta waan arkayna dadkii oo raxan u socda dadkani deegaan bay lahaayeen dhul bay ka yimaadeen dhul bay deganaayeen dhulkii ay deganaayeen ayaa haraad iyo gaajo uga qaxayaan waxaan ognahay mucaawimada la siiyo ee ay bixiyaan maxaan ku dhahdaa midowga Yurub ma dhaafto Hargeysa iyo Burco iyo Berbera ma dhaafto mucaawimada ay jaamacadda Carabtu bixiso kaalmooyinka ay bixiyaan jaamacadda Carabtu bixiso ma dhaafto Hargeysa Burco iyo Berbera kaalmada ay bixiso USAID ko ay bixiyaan ma dhaafaan Berbera Hargeysa iyo Burco ma dhaafto wadamada kamid ah jaamacadda Carabta qaar kamid ah sida Sacuudiga Kuwait iyo Imaaraadka Carabtu waxaan ognahay in dad quudiyaan intaasoo kun oo qoys inay quudiyaan baan ognahay waxaasi oo dhan deegaanka Awdal State hal nafar oo laga quudiyaa ma jirto mucaawimada xitaa adduunyada bixinaysay waxa weeye dad gaara ayaa la siiyaa nin wariye oo ka soo warramaya ayaa waxa uu yiri cidda sida ay madaxtooyada ugu kala dhow yihiin ayaa loo siiyaa xitaa mucaawimooyinka dadka marka waxaan leenahay maamulka Hargeysa waa maamul shacabka dhibaato ku haya waxaan ognahay Hargeysa iyo mataqaanaa in lagu baadheeyo Hargeysa lagu baadheeyo waxaan ognahay mucaawimadii Hargeysa lagu iibinayo waxaan ognahay in wax kasta oo dadkaasi loogu talagalay oo adduunyadu ku caawisa inayna soo dhaafayn deegaano gaar ah sidaa daraadeed waxaan leenahay beesha caalamka waxaan u soo jeedinaynaa in gurmad degdeg loo sameeyo ummadda gobolka Awdal ku nool waxaa kale oo aan ka codsanaynaa dowladda federaalka Soomaaliya waxaan la soconaa inay ku ballan qaadeen inay dhaqaale ay ku yabooheen ay siiyaan deegaankaasi
arrintaasi waxa weeye maamulka Soomaaliya ama dowladda federaalka ee Soomaaliya lacagtaasi ay ugu yaboohday waxa looga baahan yahay inay si degdeg ah u gaarsiiso deegaanada ay dhibaatadu ka taagan tahay ee ilaa iyo hadda aan loo gurman. waxaan leenahay waxaan ka codsanayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya inay lacagtaasi ay ku yaboohday inay gacanta inay ku shubin gacanta maamulka Hargeysa inaan lagu shubin ee lagu shubo lacagtaasi guddida abaaraha ee ka jirta gobolka Awdal. taasi ayaa sharciya oo ummadda reer Awdal wax u tari karaysa. laakiin haddii lacagtaasi ama gacanta maamulka Hargeysa hadday gasho wax alla wax dadkaas soo gaadhaya ma jiro. marka waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo nucod dheer ugu sheegaynaa in ay maamulka SNM aynan lagu halaynin maxaan ku dhahdaye dhibaatada maanta taagan. waayo waxaan arkaynaa ilaa iyo hadda dhibaatada qayladhaantaa socota, dhimashada la soo sheegayo, cid alla cid ka hadashay oo maamulka Hargeysa ka mid ma jirto. shacabka reer Awdal ma intaa qaylaya, iyagaas xilqaamaya oo qaadhaan ururinaya, qurba joog baa qaadhaan ururinaysa, guda joogtii baa qaadhaan ururinaysa, yacni ilmihii yaraa biriigiisii ku deeqaya. saa daraadeed waxaan leenahay maamulka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee xasan sheekh maxamuud ayaa mas-uul ka ah waxa dhibaato ka dhacda deegaanadaasi maamul goboleedka Awdal State. waxaan leenahay ka codsanaynaa inuu arrintaasi fiiro gaara oo il gaara ku eego si degdegana ummadaasi loogu soo gurmado oo dhibaatada haysata maanta ee haraadka iyo gaajada in arrintaasi si degdeg wax loogula qabto shacabka reer Awdal. reer Awdal maanta waxay ogaadeen in aan maamulka Hargeysa haba yaraatee wax alla waxa ay u soo wada aanu jirin oon ka ahayn dhibaato. waayo waxaan aragnaa in maamulka Hargeysa uuna xataa ilaa imika wax jawaaba oo uu ka bixiyey, wax baaq caalami oo uu cid u diray, wax uu ka sheegay arrintaasi ma jirto. Hargeysana waxa laga sheekeeyaa wax kale. maamulka Hargeysa wax kale ayuu ka sheekeeyaa ilaa imika. tirakoob buu ka sheekeeyaa, diiwaangelin buu ka sheekeeyaa, xusbiyeysaasuu ka sheekeeyaa. waxaa kaloo halkan ka u sheegayaa xusbiyada maamulka Hargeysa. xusbigaasi waa xusbiyada meesha ka jira waa xusbiya reer leeyahay weey. xusbi idin kala dhow reer Awdal ma jiro. xusbi idin kala dhow oo soo kala dhawaysataan reer Awdal ma jiro. hadduu kulmiye yahay, hadduu wadani yahay iyo hadduu ucud yahayba saddexda xusbi waa saddex xusbi oo reer leeyahay. ninka ka soo baxa ama ninka gala ee ka soo baxana ummadda reer Awdal wax alla wax ku kordhin karaa ma jiro. waxaan la soconaa maanta in madaxweyne ku-xigeenka maamulka maanta ka jira meeshaasi ama 1 kiilo oo timira oo dadkiisa siin kari waay. waayo waxa weeye wax alla wax faraha ugu jira ma jiro ninkaas. ma eedeynayo ninkaas waayo faraha waxba uguma jiraan. kala dambe ee yimaadana wax alla wax soo kordhinaya ma jiro. ninka doobinaya maanta ee kule madaxweyne ku-xigeen baan ahay, ninka doobinaya kule maanta waxaan ku dhahay halkaasaan xilka raadinaya. war xilka meesha aad ka heshaan wax alla waxa ummadda reer Awdal u tarasaan ma jirto. waxa idin khayr roon oo idin wanaagsan waxa weeye inaad ka qayb qaadataan sidaad ummadiina wax ugu qaban lahaydeen. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa biyo saacabada laga dhargaa. haddana inagu isku tashano oon wax meel dhigano waxaan samaysan karnaa waxa weeye wax ummadan dhibtan maanta ay ku jiraan ay kaga bixi karaan, kagana mataqaanaa kagana maarmi karaan wax kasta oo hoos geenaya cid kale. masiirka ummadeena inaan cid kale ku xidhna maaha, mustaqbalka carruurteena inaan cid kale ku xidhna maaha. waxaan dhowaan aad daawateen ood aragteen hooyo Soomaaliyeed oo ku qurbaxday gaajo u dhimatay iyo haraad ugu dhimatay deegaanka Boon. hooyadaasi way dhimatay, Allah u naxariisto. intii ku dhimatayna Allah u naxariisto. inta kalena Ilaahay dhibaatada ka dulqaado, Ilaahay ramxad khayr qabtaha u keeno. la weydiiyey madaxweynaha maamulka Hargeysa oo la yiri dadkii dhibaatadaas dhacday haraad baa loo dhimanaya, gaajo loo dhimanaya gobolkii Awdal ee maxaad arrintaasi adaa ka mas'uul arintooda madaxweynaha oo mas'uuliyadda ku saaran tahay seed u arkaysaa arrintaas. waxa uu yiri maanta waxaan u arkayaa arrintaasi waa farxad weyn, aad baan ugu farxay. waayo hadafkii aan lahaa ay ahaa in dadka reer Awdal ay qaxaan oo ay barakacaan oo ay gaajo u dhintaan ayaa maanta 90% baa ii fushay, in yar bay hadhay. waxa la weydiiyey wasiirada ka soo jeeda maamulka maxaan ku raahdaa ka tirsan maamulka Hargeysa ee ka soo jeeda gobolka Awdal. waxay sheegeen iyaguna waxa la weydiiyey hooyo ama dad fara badan baa dagaankii ku dhintay oo haraad iyo gaajo u dhimanayee maxaa sideed u aragtaan arrintaas, mas'uuliyadda idinkeeda saarantee. nimankaasi waxay ku jawaabeen iyaguna arrintaasi waxaan kaga jawaabnay mirqaan iyo hurdo. waxaanu ka qaadnay anagu in qaad kale loo sii kordhiyo si aanan arrintaa uga damqanin. qaad kale loo kordhiyey, waxoogaa lacagana waana siiyey si aanan u hadal. waaba seexanaa iminkood maxaan ku dhaha dadkii aanu qaadka u qaadi kari lahayn maanta qaadkaan u qaadnaa. waxaa la weydiiyey Ramaax oo ka mid oo ah guddoomiyaha gobolka Awdal. Ramaax wuxuu yidhi waxaan ka qaaday arrintaasi, waxaan ka qaaday farxad iyo hambalyo iyo bogaadin baan ka qaaday. waxay ii noqotay kow waa markii ugu horreysay wuxuu yidhi aan farxad la ooyo darteed markaan arkay dadka reer Awdal dhimanaya farxad baan la ooyay buu yidhi.
waxa kale oo ka qaaday uu hambaliyo oo dadkii wixii deeqihii dadka reer awdal ay urunayeen ayaan ku magac iyo hambaliyo ku helay qurba joogta awdal state ee ku nool qurbaha ayaa arrinta wax laga weydiiyay waxay yiraahdeen arrintaasi waxa la siyaado aragtan arrinta dhibta iyo haraadka dadka ku dhimanayaan waxay yiraahdeen hore ayaan u ogeyn arrintaasi iyo saacadada laga dhargaa haddii ay awdal state meesha joog lahayd dadkaasi dhibaatada kuma dhacdeen dhibtaasina may timaadeen maanta wax la dabooli karo oo laga hortagi karo ayay ahayd laakiin may dhicin lagamana hortagin waana ka xunaa wixii dhacay aqoonyahankii reer awdal baa la weydiiyay waxa la yiri aqoonyahankii reer awdal war dhibaato ayaa ka dhacay dagaankii ka dhacday ka timaadeen haraad baa loo dhimanayaa gaaja loo dhimanayaa aqoonyahankii reer awdal waxay ku jawaabaan dhacay gaajada iyo haraadku maxay yihiin dadka gaajada iyo haraadka u dhimanayaan waxay dhahan way ka gaba cunaan waayo waxa weeye ninkan aqoonyahanka reer awdal waa nin maxaan ku dhahaa kafeegiisa iyo moofadiisu isa saaran tahay weeye nin yaqaano maaha cid kale lama yaqaano wax dhimanayana ma yaqaano ninka dhimanaya oo la yaabaya xuleysay gaajo ba adduunyada kama jirto wuxuu gaajo waa la cirib tiray haraadna waa la cirib tiray adduunyada kama dhacaan marka sidee u dhici kartaa in dadku ay gaajo u dhintaan way ka gaba cunaan bay taagan yihiin aqoonyahanka reer awdal marka waxaan leenahay halkii kusoo gabagabinayaa maamulka Hargeysa waxba inima soo wado alla wax idin soo wada ma jirto waxaad arkaysaan hooyooyinkii reer awdal oo qaylinaya TV-ga ka qaylinaya maalin iyo habeen oo caruurtoodii inay bariis u kariyaan diiday oo bariiska ay caruurtooda karin lahaayeen dadka dariiqa ula taagan halkii maamulka meesha ka jira haddii uu yahay maamul dadkan u danaynaya oo dariiqa la istaagi lahaa biyaha iyo rootiga oo dumarka reer awdal ee banaanka jooga ee mataqaan dhibaatadaasi ka damqanaya ay fadhiisan lahaayeen waxaan tusaale u soo qaadanayaa macnaha dawladnimadu waxay tahay markaan ka hadlano dawladnimadu waa wax lagu hirto weey community-ga nagoo nool magaaladan ku noolahay wali man arkin community-ga reer Djibouti oo lacag urunaya oo leh waxaan dhisanaa dariiq wali man arkin community reer Djibouti oo intay meel isku yimaadeen ka hadlaya oo leh waxaan dhisanaa airport wali man arkin community reer Djibouti oo ka hadlaya mataqaana oo leh waxaan dhisanaa school community reer Djibouti oo meel isku yimiday oo qurbaha ku nool oo leh waxaan dhisanaa dhakhtar community reer Djibouti oo leh waxaan dayactirnaa dariiqa heblaayo ayaa wadada waxaan ku dhahay riddi gobolba ayaa dariiqaas xumaado aan dayactirnaa wali kama maqal waayo waxaas oo dhawaa waxa dawladdu qabatay weey abaar baa dhacda dawladda ka jawaabta dhibaato timaada dawladda ka jawaabta shicibku waxay doorka ay ku leeyihiin waa door yar weey maantana waxaan arkanaa in shicibkii reer awdal qurba iyo gudaba ay iyagu isku tashanayaan oo wixii dhib kasta oo wadanka ka dhacda oo deegaanka ka dhacda inay iyagu ka jawaabayaan baan arkanaa marka waxaan leeyahay shicibka reer awdalow maamulka aad ka sheegataan waxa weeye waad aragteen maanta halka ka taagan tihiin halka aad kaga jirtaan maanta waad ogaateen baan filayaa haddii aad taa ku baraarugi weydaan oo malayn maayo inaad beri kale oo aad baraarugasan ay soo socoto baraarug intaas ay nagu filnaato gacanta isqabsada hawshiina dhista wixiina qabsada maamulka Hargeysa ka maarma intaasaan kusoo gabagabayn lahaa hadalkayga waxaan leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh xaaladda abaaraha ka jirta Soomaaliland gaar ahaan gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa maraysa halkii ugu dambeysay dhimashada xoolaha iyo dadka haraadka u dhimanaya ayaa sii kordhaysa marba marka ka dambaysa qoysta dadku waxa ay gaadhay inuu ka dhaqaajiyo xoolihiisii oo qudhoodu sii leecanaya balse aan naf bixin si ay tooda u badbaadiyaan Dr. Axmed Buuxane waxa uu ka mid yahay waxgaradka gobolka Awdal ee ku jira gurmadka dadka abaaruhu idlaysay ee hayaanka ku jira inta aanu xalay soo gurannay oo kaliya ee gool noo soo qaaday dhowr neef bay ahayd oo laga dhaqaaqay cid lana aan la garan nafaqeeyihii u baahan yihiin oo aarista u baahan yihiin dawooyinkii la soo u baahan yihiin dhaxaatiir loo kale u baahan yihiin hanti u baahan yihiin u baahan yihiin daawo u baahan yihiin markaas daawo u baahan yihiin in la helo gaadi ay ku qaadno oo ku dhaweyna loo baahan yahay sawirqaade Xuseen Maxamed Caqli Sidaam iyo Maxamed Bilibili oo ka tirsan TV-ga qaranka oo la socday gudida abaaraha gobolkaasi ayaa ka soo duubay xaaladda adag ee ka jirta halkaasi oo qof kasta oo dhiig islaam ku jira uu ka damqanayo way soo mushaylmi way ku sidataa labada ciyaarana way sidataa Allahumma la beeg taagantahay waxa weeyaan iyadoo u baahan daryeel iyadoo u baahan caafimaad iyadoo u baahan walaalaheen waa ku kii arkaya